kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad oo xilidan oo kale aad la socotaan qodobada maanta saaxiibayaal aynu idin hayno waxa ugu waaweyn seefta madaxweyne farmaajo oo gasha ka baxsan iyo mas'uuliin la magac dhabay oo ay suurtagal tahay in xilka laga qaado wararkii ugu dambeeyay kulamo xasaasi oo ka dhacay fila Soomaaliya ayaad barnaamijka ku daawan doontaan waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa guddoonka baarlamaanka oo go'aan ka soo saaray wartibinta warbaahinta madaxa bannaan ee kulamada baarlamaanka xilli buuqii ugu dambeeyay ee goluhu uu ka dhashay warbaahinta qodobada kale barnaamijka aynu idinkugu hayno waxaa ka mid ah senator muuse suudi yalaxow oo si kulul ugu hanjabay duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan yariisow iyo xiisadda kala dhexaysa dowladda federaalka oo meel xun gaartay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo qayb ka ah wafdiga ra'iisul wasaare Khayre ee Mareykanka ku sugan waxa uu shaaciyay rajada dowladda federaalka ay ka qabto deyn cafinta Soomaaliya waxaad kaloo daawan doontaan fariin oo sanad ka hor reebay gudoomiyihii iscasiray ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Jawaari oo maanta saameynteeda lagu soo baraarugay iyadoo xildhibaanada qaarkood xog dheeraad ay bixiyeen u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo barnaamijka ku daawataan mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal waa Arbaco 10ka bisha afraad ee Abriil sanada 2019 haddii aynu ku bilowno barnaamijka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo suluugsan qaab sugidda amniga magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyay la tashiyo waxa uu la waday saraakiisha iyo indheergaradka dhanka amniga ee magaalada Muqdisho la tashiyadan ayaa la tilmaamay madaxweynuhu inuu xog badan ka qaatay waxaana laga yaabaa isbedel in lagu sameeyo laamaha amniga oo qaarkood xilkooda ay waayaan ila ku dhow xarunta madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha ayaa inoo sheegay in kulamadaasi oo marar kala duwan dhacay laga yaabo saraakiisha sare dhanka amniga qaarkood in xilka laga qaado dadka isha lagu hayo oo ay suurtagal tahay isbedeladu inay saameeyaan waxa ka mid ah taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Bashiir Maxamed Axmed Ameeriko maadaama inta badan falalka amni darro iyo qarxadu ay ka dhacaan magaalada Muqdisho sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayay macquul tahay in xilka qaadis lagu sameeyo iyadoo aan la shaacin ama xitaa aan la saadaali karin mas'uulka ay suurtagal tahay inuu bedelo xogta aynu helnay waxa ay sheegaysaa madaxweynuhu labadii toddobaad ee ugu dambeysay inuu la qaatay kulamo kala duwan saraakiil amniyo hore iyo sidoo kale odayaal dhaqameed kuwaas oo kala hadlay sida ay macquul tahay isbedel amni inuu ku sameeyo si guul looga gaaro amniga Muqdisho sidoo kalena looga hortago weerarada argagixisay shabaabku inta badan ay geystaan ayuu sheegay madaxweyne Farmaajo inay lagama maarmaan tahay isbedel amni in la helo si rasmi ah looma sheegin goorta tallaabada isbedelka oo ku dhaqaaqi doono madaxweynaha Soomaaliya waxa la xaqiijiyay in jiraan qorshayaal madaxweynuhu ku dhaqaaqi doono oo la xiriira dhanka amniga magaalada Muqdisho warqaad iyo nagala socotaan barnaamijka arrimaha siyaasadda Soomaaliya waa daawanaysaan iyadoo maalmihii ugu dambeeyay taagneed xiisad ka dhalatay guriga deganaa senator muuse suudi yalaxow oo maamulka gobolka Banaadir oo amray inuu halkaasi ka guuro ayaa waxa soo baxaya warar dheeraad oo arrintan la xiriira senator muuse suudi yalaxow oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulamo kala duwan waxa uu la qaatay waxgaradka iyo siyaasiyiinta ay isku beel yihiin waxaana looga hadlay kulamadaas sida arrintan xal looga gaari karo muuse suudi ayaa si carela uga hadlay hadallo warbaahinta ka sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho taas oo la xiriirtay inaysan marna ka waaba doonin amarka ay bixiyeen oo dhaqan galo isla markaana aysan suurtagal ahayn shakhsiyaad hogaamiye kooxeed ahaa jiray dowladda Soomaaliya inay carqaladeeyaan taas uu la jeeday muuse suudi yalaxow senator muuse suudi yalaxow ayaa hordhigay waxgaradkii siyaasiyiinta oo kulamada la qaatay in si wada jir uga shaqeeyaan sidii xilka looga qaadi lahaa injineer Cabdiraxmaan Yariisow oo dowladda Soomaaliya ugu magacaaban gobolka Banaadir sidoo kalena la aaminsan yahay saaxiib dhow inuu leeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
odayaasha dhaqanka oo intooda badan la tilmaamay inay raacsan yihiin senator muuse suudi yalaxow ayaa waxa ay sheegeen mar kasta inay garab taagan yihiin islamarkaana dhibaato kasta oo kaga timaada dhanka dowladda ay ka difaaci doonaan odayaal dhaqameed ka socday senator muuse suudi yalaxow oo maalmo ka hor la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka mudane farmaajo ayaa la sheegay inay madaxweynaha ku wargeliyeen wixii ka dhasha isku dhac ciidamada dhexmara in dowladdu ay qaadi doonto muuse suudi yalaxow oo si weyn uga carooday hadalkii gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa bilaabay abaabul hor leh waxaana la tilmaamayaa ciidamo dheeraaduhu guriga uu degan inay soo gaareen kuwaas oo isku diyaarinaya difaaca senator muuse suudi yalaxow oo xiisado ay kala dhexaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya muqdisho waxaa ka dhacay kulamo badan oo la doonayay in xal looga gaaro arrintan ha yeeshee muuse suudi yalaxow ayaa sheegay in marnaba uusan aqbalayn sharciga in la hareer maro maadaama uu ku dooday guriga uu degan yahay warqado sharciya oo dowladda siisay inuu haysto وهجاك داود يال ورقادي أدقال سعطان برامج كرمها سياسة الصومالية وداون إنسان حكومة فدرالك الصومالية يا مركلة شاعسي رجل لقى قبو إن صوماليا لقى عفيو الدون لعقاد أو ديما اللوغو ليهي وزير كمالية حكومة الصومالية عبد الرحمن دعالي بيلي وكمد وفد قريد الوزارة قيرية كسوغان ودن كامريكانكا waxaa uu sheegay ujeedka ugu weyn ee Washington ay u tageen inay tahay sidii Soomaaliya deymaha looga cafi lahaa arrintan ayuu rajo wanaagsan ka muujiyay isagoo tilmaamay dadaal dheer inay ku soo bixiyeen inay guul ka gaaraan Soomaaliya deymaha in laga cafiyo muhiimaddu waxay ahayd waxa weeye shirarkii waaweynaa ee World Bank ama banka adduunyada iyo fundka ay organize gareyn jireen weeye ama ay manage gareyn jireen isku keeni jireen annaga markaa muhiimaddeedu waxay ahayd waxa weeye arrintii deyn cafiska ayaa muhiimadda ugu weyn ahayd ra'iisul wasaaruhu markaa wuxuu muhiimadda saaray madaxweynaha cusub David Malpass oo aad iyo aad u soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha oo nagu yiri waxa weeyaan dawladdii ugu horeysay shaqadii maanta bilaabay uu yiri maanta dawladda ugu horeysay aan damaanayna ka waa Soomaaliya buu taas sharaf weyn bay runtii noo ahayd talabaad waxaan iska wareysanaynay waxa weeye halka ay wax marayaan Soomaalida arrinteeda halka ay marayso arrintii deyn cafiskii aan ku soo daalay shaqada badan naga baxday halka ay marayso ayaan iska wareysanay taa waxa ka horeysay tu kale oo anaga laftayadu aan la wadnay IMF-ta saduuqa lacagta adduunka aan la wadnay oo shalay daraad baan ku jirnay waxa soo dhan wixii ka soo meedha baxay baa shirkii imika madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay kulmeen iyadana lagu la faguray maxaa ka soo baxay baa la lahaa xageen ku socono xageen ka nimid halkeen taaganahay waa la islaha wararku marka halkaas ayay ahaayeen waxaan u socotaa si fiican qaybihii dhexe barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray warbaahinta madaxa bannaan ee kulamada baarlamaanka xilli buuqii ugu dambeeyay ee golaha uu ka dhashay warbaahinta waxaa goor hore oo maanta soo dhamaaday kulamo dhexmaray guddoonka baarlamaanka Soomaaliya iyo inta badan agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada Muqdisho kulamadan oo ahaa kuwa la wada sugay natiijada ka soo bixi karta ayaa ugu dambeyntii waxaa la isku afgartay in saxaafadda loo ogolaado kulamada baarlamaanka marka laga reebo kulamada su'aalaha lagu weydiinayo madaxda amniga guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada ayaa isku afgartay in la ilaaliyo habsami u socodka kulamada baarlamaanka lagana fogaado wax kasta oo qalqal ku keeni kara kulamada baarlamaanka madaxda warbaahinta madaxa bannaan ee guddoonka baarlamaanka maanta kulanka la qaadatay waxaa lagu qanciyay maalinta Sabtida oo laga doodi doono arrimaha amniga warbaahintu inay kulanka baarlamaanka yimaadaan iyadoo maalinta Axadda mas'uuliyiinta dhanka amniga su'aal la weydiin doono markaas oo warbaahinta lagu wargeliyay inaan kulanka baarlamaanka laga ogolayn xukuumadda federaalka ayaa u muuqatay inay ku guuleysatay ujeedkeedii ahaa in marka su'aal la weydiinayo laamaha amniga aysan goobjoog ka noqon warbaahinta madaxa bannaan waxaana maalinta Axadda ee soo aadan fadhiga baarlamaanka hortagi doona mas'uuliyiinta dhanka amniga ee dowladda federaalka iyadoo baarlamaanku halkaas su'aal ay ku weydiin doonaan ha yeeshee maalinta Sabtida
xildhibaanada oo kaliya ayaa ka doodi doona arrinta amniga. ugu dambeyntiina fariin oo reebay sanad ka hor gudoomiyihii iscasilay ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa saameynteeda la dareemay iyadoo xildhibaanada qaarkood arrintan xog dheeraad ah ay ka bixiyeen. 9kii bishii Abriil sanad ka hor ayay ahayd markii uu iscasilaadiisa ku dhawaaqay gudoomiyihii golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari isagoo garab taagnaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. iscasilaadiisa markii uu ku dhawaaqay Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari 2 maalin kadib istiqaalada waxa uu ku wareejiyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey iyadoo ay madasha fadhiyeen baarlamaanka Soomaaliya. iscasilaadii Jawaari waxay caafimaad u ahayd in la soo gabagabeeyo khilaafkii ugu adkaa uguna waqtiga dheeraa ee uu dalku galo tan iyo markii madaxweyne loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kalena waxay baajisay cabsi badan oo dhanka amniga oo la aaminsanaa dhibaatooyin kale inay dhici karaan. markii uu khudbadda ka jeediyay fadhiga baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari waxyaabihii diiwaanka galay ee hadaladiisa ka mid ahaa waxay ahaayeen Jawaari looma jeedo ee waxa loo socdaa in la curyaamiyo baarlamaanka. 1 sano kadib waxa dhacay isbeddello waaweyn waxaana muuqanaya dhacdooyin ka marqaati kacaya digniinihii Jawaari ee 1 sano ka hor baarlamaanka uu ka hor sheegay. xildhibaanada baarlamaanka qaarkood gaar ahaan kuwa mucaaradka iyo kuwa muxaafadka oo xiriiro kala duwan aynu la sameynay waxay ka gaabsadeen ka hadalka arrintan. ha yeeshee meesha kama saarin inuu jiro dib u dhac weyn oo xildhibaanadu ay sameeyeen muddada 1 sano kadib iscasilaadii Jawaari. xubnaha mucaaradka dowladda ayaa hore u sheegay baarlamaanku inay gacanta u galeen xukuumadda federaalka waxaana sidoo kale arrintan aaminsan dad badan oo aan qayb ka ahayn mucaaradka iyo dowladda federaalka. kulamo dhowr ah oo yeelanayeen baarlamaanka Soomaaliya dalkana muhiim u ahaa ayaa u baaqday isqabqabsi iyadoo baarlamaankii 9aad hogaamintiisa si weyn ugu guuleystay Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari gudoomiyihii sanad ka hor iscasilay. guud ahaan waa nagintaas barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad intaaynu mid lamid ku kulmayna haddii alla idmo nabadgelyo. ku soo dhawow warqaad press haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like siina share garee haddii aad nagu cusub tahayna subscribe si aad u hesho muuqaallo cusub fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga aad baad u mahadsantahay.